بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ما بعد شكرا waan dhowahay salada xilliga nabiga kaleey salaatu wassalaam cuduradan hadda socdo kala ma jiri jireen jawaabtu waa nacamha waxaan uga jeedaa cuduradan faafa dhinacna dilaaga ah oo hal mar ay dad badan u leedaan waxa ugu caansanaa cudurka daacuunka la yiraahdo ama taacuun waa carabi ereyga daacuun runtii ereyga daacuun ma cudur gaar ahba soo cuduradan dilaaga ee sida degdega ah ku faafo oo dhan arrin hore culimadu uga doodeen weeye laakiin sida ila saxsan daacuunku waa cudurro gaar oo dilaa jirkana ka soo baxa gaar ahaan meelaha laablaabka sida kilkilaha iyo meelaha qarsoon kadibna boogan noqda oo qofka dila saasay ku tilmaamayaan axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar ka mid sida xadiidka Caaisha daacuunkaas wuxuu tilmaan u ahaa ama astaan u ahaa cudurrada dhammaan faafa ee sida fudud ku faafa iyo degdega dadkana aad u laaya cudurrada waa jiri jireen cudurrada sidaas nabiga calayhi salaam dardaaran iyo talo ka bixiyey oo muhiimadeedu ay ahayd haddii uu meel ku dhaco meesha uu ka dilaacay inaan la tegin haddii meel aad joogto uu ku dhacana inaan laga cararin taladaasi tala nabigu bixiyey alayhi salaatu wasalaam ana xadiidka Cabdiraxmaan ibn Awf wuxuuna ku soo shaacbay xadiidku xilligii Umar radiyallahu anhu baa daacuun ka dilaacay qaybo wadamada muslimka kamid ah dhulkii Shaam la dhihi jiray oo isku ahaa Lubnaan Falastiin qaybo Urdun kamida ilaa Syria Umarna waxay ku soo beegantay waqtigu uu booqasho ku tagayay wafdi ballaaran uu watay oo saxaabadii kamida marka arintii loo sheegay buu shir qabto muhaajiriintu shiriyay si gaar ah ka tala bixiyo yiri way ku kala jabeen aan soconay aan ka noqono iga baxa buu yiri ansaar buu yeeray wuxuu tala bixiyo sidii bay u kala jabeen kadib iga baxa buu yiri odayaal waayee lahaa oo reer Qurayshaad buu isugu yeeray war naga celiba dheen dadka ku baabi'inin meesha go'aankii buu qaatay in saxaabada ku war qadarka Ilaahay baad ka cararaysaa wuxuu qofaan adii ahayn haduu dhihi lahaa hadalkaas talaaban ka qaadi lahaa laakiin sax qadar baan ka cararaynaa qadar baan u cararaynaa wuxuu xoolahaaga hadii laba qaybood meel abaar iyo meel barwaaqada daajiso qadar Ilaahay kuma aadan daajin hadaa meesha abaarta daajisana qadar Ilaahay baa ku daajisay ka daajin lahayd laakiin kan barwaaqada la raadin lahayd marka waxay markaas soo gaaray Cabdiraxmaan ibn Awf oo maqnaa wuxuu waranaa cilmidiin haya nabiga dardaarmay meeladu ka dhaca tagina buu yiri meelaad ku joogtaan haduu ku dhacaana ha ka tagina taasi waxay aadaabta asaaska loola dhaqmi jiray ee nabigu ka dardaarmay oo masalada hadda karantiinka ama karantiilka loo bixiyay waay meeshuu ku dhaco inaan laga bixin meeshuu ku dhacana aan la tagin si loo yareeyo faafitaanka marka la nabigu cudurrada faafo dhan buu ka dardaarmay oo hadda kan uu soo galayo hadda jira wuxuu yiri inta caafimaadsan inta jiran aan lagu darin wuxuu la yuradu mumridun ala musih xoolo jiran yaan lagu darin xoolo caafimaad qaba isna waa fi sahih min hadith abi hurayra marka loo dardaarmay oo wuxuu yiri nabi alayhi salaam firra min al-majdumi firaraka min al-asad qofka judaanku waa cudur jirka boog noqdo kadib xubnuhu googo'aan isdhaxgalka iyo taabashada iyana sabab u noqoto oo ku faafo wuxuu sida libaaxa uga cararta naftaada qofka uga carar naftaada intaas oo dhan waxay tilmaamayeen sida loola dhaqmay inay tahay qofka uu hayo ama meesha uu ku dhacay halka uu san ku dhicinayo qofku san haynin in la kala fogeeyo in la kala ilaaliyo ama qofku isagu iska ilaaliyo inuu tago ama geeyo ama ku darmada dadkaas hadii cidda mas'uulka umada ka ah sida tiraada ay timaadana ay tahay waajib in loo hogaansamo mudan wabillahi tawfiiq ma jiraan cudurro qofka muslimka hadii uu u geeriyoodo uu shahiid yahay alxamdulillah shahiidka aan ahayn qofka jihaadka dagaalka ku dhintay nabiga naxariis dad badan buu tiriyay inna magacyadoodii baa la tiriyay inna la macnay noqon karaan baa la yiraahdaa inta la tiriyay macnahooda waxa kamid ah daacuunka
dadka shubanka u dhinta almabtuunu la yidhaahdo. shubanku waxaa soo gelaya innaga cuduradan koleeraha ah ee dadku ay fuuq baxaan ay shubmaan. innagu daacuun baan u naqaanaa, laakiin xadiidku wuxuu ku tilmaamaya almabtuun, cudurada caloosha iyo shubanka iyo bixitaanka iyo dadka u dhinta. waxaa ka mida qofka biyaha ku dhinta iyo duufaanada iyo biyuhu ay qaadaan. waxaa ka mida qofka dabka ku dhinta, meelaha dabku ay ka kacaan iyo dababkaa ka mida. waxaa ka mida qofka dumarka ah ee umul raacda ama ilmaha caloosha ku jirta u dhimata. laba xaaladoodba, haddii ilmihii markuu soo yimaado ay umul raacdo, iyo haddii ay dhacdo in ilmihii caloosha ay fooshii ku dhimato oo isku dhimato. waxaa ka mida kuwa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, dadka guryuhu ku dumaan ama meeluhu ku dumaan. godbax laga qodayey baa ku dumay, guryaha ku soo dumay, ama dhulgariir ha sababo ama sabab kale ha keento. waxaa ka mida nabigu alay slam tilmaamay dadka u dhinta cudurka daati ljambi la yidhahdo. daati ljambiguna waa cudur ay soo gelaya cuduradan kansarka la yidhahday oo kaleetiyo uu soo gelayo wey. cuduradaasoo dhani ama kuwo faafa ha noqdaan ama kuwo si guud dadka ugu dhacaa ha noqdaan ama qof gaaraba ha qabsadaane waa shahiid baa la yidhi. haddaan idhaahno daacuunka iyo koleeraha, mabtuunka iyo kuwa lamidkiihi, qaar waxay soo gelayaan cuduradan oo kale waa gelayaan sida culimmadu qaar qabaanna dee shahiid bay noqonayaan. haddii la idhaha ma soo gelayaanna waxay imanaysa masale culimmadu ay ka doodaan oo ah macnahan oo kale baabulqiyaas ma galaa oo kuwan oo kale inta looga qiyaasto waa shahiid ma la dhihi karaa. waxaa muhim inaan baraarujiya halka markaan marayo, waxaa jiray cudurro badan oo loo dhiman jiray oon shahiid la dhihin iyagana. xilliga nabigu madiine tagay calayhi salaatu wasalaam, cudurro badan baa ka jira oo madiine meel cudur badan bay ahayd. cudurkeeduna malaria u badnaa oo meel qaniin badan oo malaria badan bay ahayd. saxaabadii dhan tagtay dhan badankood waa ku jiradeen, waa ku xanuunsadeen. nabigu waa ka ilaahay baryo oo juxfe in loo raro. malaariyadii dadku aadka u qabanaysay lagama dhigin shahiid, lagama dhihin waajir shahiid way lama dhihin. taasi waxay tilmaamaysaa dee way dhici kartaa inuu cuduradan soo galo, lakiin waa masale ka fiirsi badan u baahan. kolba axkaamtii adduunyada dadkii caadi u dhintay maadaama la siinayo, ilahay un ajirkaa inuu siiyo raxmaddiisa waasaca waa uga rajaynaynaa, laakiin ma xaqiijin karno. sidaan la soconno adduunka maalmahan waxaa aada u walwalgelinaya xanuunka coronavirus. dad badan oo muslimiina oo soomaali ay ku jiraan ayaa ka mida dadka u geeriyooday amaba u geeriyoonaya. qofka muslimka ah ee u geeriyooda caabuqa coronavirus sidee ayaa loo dhaqi karaa midkiisa, sidee ayaana loo aasi karaa? alxamdulilah, qofku markuu geeriyoodo muslimka ah 4 buu xaq u yeeshaa in loo sameeyo. isaga dabcan waa geeriyoodo waajib ma saara. 4 baa lagu leeyahay dadkii ka dambeeyo waajiba. midka koobaad waa in la dhaqaa, waa in la kanfaa, waa in lagu tukadaa, waa in la aasaa. intaa waajibkaa si guud hadba intii la kari karaa laga samaynaya. marka waxaa laga yaabaa intay su-aashan ay u baahan tahay inaad mid mid u kormarno. marka koowaad aan ka bilowno dhaqitaanka u horeeya. dhaqitaanku waa waajib haddaan wax diida jirin, oo ama sharci ah ama xisi ah. hadday dhacdo qofkii wax hor istaagaya in la dhaqa inuu yimaado oo xagga sharciga ah, way diinta islaamku xaaladan in la dhaqa ay diido. waxay yidhahdaan tusaale, qof dumaraa dhimatay, wax dumarana ma joogaan, wax ragoo qoyskeedii iyo ninkeediina ma joogaan, rag ajaanibaa wada jooga. maxaa la samaynayaa? qofku dumarka nin ajnabiya inuu dhaqa lama ogola. 3 kee la samayn, inti maro lagu dado oo gacantana wax la gashado oo biyaha korka lagaga shubo baa gacan la marmarin, mise iyadoo mara ku dadan baa biyaha korka lagaga dhaqi, mise waa loo gebagabayn. 3daba culimmada qayb baa qaba, mise intaa midnaba la samayn maaye sideedaa lagu aasi, maadaama qof ajnabiya in la taabta aan la ogolayn. ilaa waqtigii taabiciinta intaba aragtida kala duwani waa jirtay. hala dhaqo iyo dhaqitaankii waa dhacaya maadaama qofku ajnabi ay tahay, ragguna taaban karin. marka maanic sharciya waa iman karaa, maanic xisiya iman karo. fuqahada iyo culimmada hore uga hadleen. daacuunadanna waa dhici jireen iyo cuduradan dilaagii oo hadda wax cusub maaha.
waxay ka hadleen qof gubtay oon laba taaban karin waxay ka hadleen qof xanuun u googo'ay oon laba taaban karin waxay ka hadleen qof muddo ka hore dhintay oo isagoo isku dhex yaacay oo isku dhex daatay oo yar qurmay la helay maxaa la samaynayaa waxay ka hadleen haddii looba baqaya qofkan dhaqaya taabashada looga baqayo maxaa la samaynaya waxay u qaybiyeen 3 xaaladood qofkii haddii la dhaqi karo waa la dhaqaya haddaan la taaban karin oo dawlad iyo maasho intay ka dadaalaan la buufiyo qolka iyo qalabka iyo wax walba la buufiyo biyaha tuubada lagu siideyn karo korka lagaga rushayn karana waa lagu rushaynaya haddii taa la awoodi waayo ciid baa loogu gabagabaynaya hadday taasi suurageli weydo sidiisaa lagu aasaya kama duwana qofka nool ee qabaysku waajibka ku yahay ee salaada laga rabo hadduu qabaysan karo waa qabaysanaya hadduu jirka wada dhaqi waayo intuu dhaqi karo dhaqaya hadduu kari waayo uu gabagabaysanayaa faaqidu tahurayn hadduu yahay salaadiina la gaaray sidiisuu ku tukanaya ciidba hadduu waayo biyana waayo salaadiina la joogo muxuu samaynayaa asaxiixu wuu tukanayaa qadarkii waajibku awood la-aan buu u dhacaya qabayskii haddaba haddii la dhaqi kari waayo meeshuu ka baxaya inta dambe la samayn karaa la samaynaya haddii qabayska laga tago waxay imanaysaa mas'alada waa loo qabeeyey ama loo qabayn waa la dhaqi waay kafankii maxaa laga samaynaya kafanku haddii maryo lagu duubo horta wax gaara oo waajib ah ma jira kafanku aan ahayn qofka in la asturo hadba wixii lagu asturi karo sidaa darteed maalinkii wuxuu dhar astura markii shuhadadii la waayey qaarkood caws baa la soo guray oo intii dharku gaaray maanay sida Mus'ab ibn Umayr oo kaleetiyo caws baa lagu daday intii kale macnaheedu waxaa la waayeyba wax lagu dada hadday saas oo kaleeta dhacdo in la waayo muhiimaddu waxay tilmaantay qisadaasi maydku in la asturo oo la duubaa muhiim ah haddii dharkii caddaad ee 3 maraya loo helayo ama la samayn karaayo waa sunna waajib ma ah wax kastoo lagu duubo oo lagu dado kafan sharci uu noqonaya cawradiisa in la asturo unbaa muhiima intaa waajibkaa waa in la sameeyaa ama dawladii ha samayso ama dadku ha sameeyaan hadba ciddii mas-uuliyaddaa u istaagi karta intaasina waa waxa kafankiisa ku aadan ama plastic ha lagu dado waxaa wanaagsan waxaa lagu dadayaa wax cawradiisa asturaya inuu noqdo baa booskii buuxinaya oo gelaya masalada kafankana markay dhammaato salaadii baa imanaysa si lagu tukanayaa baa imanaysa qofkii haddii lagu tukan karo jamaacada ugu badan baa fiican inay ku tukato way dadka tukanayay waxay ilaahay uga ergeynayaan ay u ducaynayaan qofkan uu dambi dhaafo jannadiisii geey inta la badin karaa wanaagsan haddii dadkaan laba badin karin ama duruuf caafimaad diido ama dawladii diido ama dadkuba yar yihiin intii suuragal ah baa ku tukanaysa haddii arrintaas suurageli weydo oo dadka loo diido waxaa bannaan marka la duugo kadib in qabrigiisa lagu tukado korkiisa nabiga alay slam gabadh masaajidka xaaqi jirtay baa dhimatay habeennimo saxaabadu ma soo toosina way ku tukadeen way aaseen subaxii buu waayey gabadhii awe waxaa la yidhi xalay dhimatay maxay u sheegi weydeen inaan ku soo kicinaan diidnay baa la yidhi wuu tegey qabrigaadii tusuu yidhi qabrigaa la geeyey qabriga korkiisu istaagay janaasadeedii buu ku tukaday dadkii uxud la aasay shuhadada ahaa kuma tukanin maalinkii nabigu laakiin geeridiisii ka hor wax yar 8 sano meelaha markay ka soo wareegtay buu tegey qubuurtoodii buu tegey janaazu ku dul tukaday saxaabadu waxay ku fasireen kal muwaddici lahum in adduunkii ka socda oo iyagii macsalaameynay haddaba dar la aasay qabrigooda intii kadib la tago waa lagu tukan karaa ama si khaldan ha loo aaso markii horeba aan la ogeysiinin ama ha loo aaso looma dhowaan karo intaa hadday suurageli weydo sharcigu wuxuu baneeyey dad badan oon lagu tukan karin ama meydkoodaba aan la arag oo lagu tukado dad baa diyaarada ku burburay dad baa dooma la degaan dad baa dab ku gubta dad baa wax ku dumaan dad baa meel fu ku dhinta qofka saas oo kaleeta salaatul qaa'ib buu sharcigu jideeyey nabigu najaashi baa loo soo waxyooday inuu ardul xabasha ku dhintay isagoo madiina jooga saxaabadii wuu soo saaray safaf buu ka dhigay isagaa tukiyey walaalkeen oo dhul kale ku dhintay baan ku tukanaynaa buu yidhi salaatul ghaa'ib buu ku tukaday qofkii waa lagu tukan karaa xataa isagoon qabrigiisa la tegin
wadamo kalena la joogo intaana waxaan filayaa qadarka salaada kaga filan inay tahay maydka in la guba diintu maxay ka qabtaa alxamdulilah masalada aasku waa masxaqa afraad ee qofku uu leeyahay ee ugu dambeeya sharcigu wuxuu faray dadka maydka in la aaso in la aasana waajib waxay ku tahay dadka nool maydku wuxuu leeyahay xurmadda sida markii uu noolaa uu lahaa buu leeyahay nabigana waxaa ka sugan sal inuu yidhi kasru cadmi اlmayiti ka kasrihi xayan qofka nool laftiisa in la jebiyaay waxay la mid tahay isagoo nool naftiisa la jebiyo saa darteed qofku marka uu dhinto maydkiisu wuxuu xurmo iyo xaq iyo qadarin u mudan yahay sida markii uu noolaa bini aadamku ma aha sida aalad wax soo saaroo marka laga dhammaysta la tuuro qashin lagu tuuro ama la gubo maaha xataa kuwa gaalada ah nabiga sal maalintii uxud dagaalku waa la isku dagaalay waana la laayay sax laakiin banaanka ugama tegin haadda iyo xayawaanku inay cunaan meel god ah wuu ku ururiyey haddaba maydkii hadday timaado inuu farabato oo aaskii la aasi waaye farabadni xabaal wadareed baa loo samayn karaa hadba inta la awoodo uxud markii saxaabada badan la laayay 70 dad badanna la dhaawacay awoodduna ay yarayd laba saddex buu qabri u geliyay nabiga alayh salatu wasalaam kuwii badar lagu laayay gaalada ahaana god buu ku wada guray madka maydka in god lagu guro oo la aaso hadba sidii suuragal ah way waajib in la gubo ma banaana hal xaalad baa gubitaan laga hadli karaa intaan qaacidada fiqiga iyo sharciga garanayo hal xaalad gubitaan waa laga hadli karaa haddii maydkii bato oo laba aasi waayo kadibna maydkaasi inta uu qurmo isagoo qurmay ay cudurro ka faafaan laga baqo oo intii noolayd inuu wax soo gaadhsiiyo ay noqoto aaskiina cid aasta lama hayo daacunada qaarkood qarnigii 9aad dhexdiisa masar ka dhacay waxay sheegayaan maalintii masar gudaheeda iyo qaahira 1000 qof baa dhimanaysa waxay ka sheekeeyeen mayd inta la qaaday dadkii sii waday aaska u sii waday qabrigii waxaa gaadhay hal ninkiina isagoona caasi buu dhintay isaga laftiisa markaasoo kale hadday noqoto maydkii waa qurmaya xayawaanaad baa faarfaaraya cudurraa ka faafaya oo ka dilaacaya oy noqoto laba khiyaar keliya timaado in la gubo si dadka nool cudurrada inay faafaan looga badbaadiyo iyo in la daayo oo xayawaanku cuno qurunkoodii meesha yaallo marka intaan garanay qaacidada sharcigu waa banaynaysaa in la gubi karo waa mar xal kale la waayey keliya ay ku soo urursatay dadka nool seebaa looga badbaadiyaa cudurkaa inuu fido dadkana lama aasi karo dii kale cagaf funti meel la geliyo oo la qodo baa lagu gedin karaa qof walbana camalkiisa aakhira lagu xisaabtamaya billahi tawfiiq muslimiinta qaar gaar ahaanna soomaalida ay ugu badan yihiin waxay aaminsan yihiin in xanuunkan coronavirus uusan dadka muslimiinta ku dhacaynin taas maxaa ka jira alxamdulilah su-aasha ah muslimiinta ma ku dhacayaa aan laba qaybood u kala qaado dhinaca sharciga ee diinta intaan ka aqaano anigu cudurrada dilaaga ee faafa muslim kuma dhaco sal kuma laha xilliga cumar dadka uu ku dhacay ee uu laayo muslim bay ahayd xilligan dambe ilaa xilligan dambe ee qaahira taacuunka ka dilaacay kutubta uu ka qoray xaafid ibn xajar raximah ullahu tacala ragga lamidka ay ka sheekeynayaane maalintii kunka dhimanaysana muslimiin bay ahaayeen marka ma garanayo anigu meel sharci oo leh daacuun iyo cudurrada qaarkood kuma dhacaan muslimiinta ka diin ahaan ma garanayo dhinacdee dadka muslimkaa kuma dhaco hadday dhakhaatiir leeyihiin oo dhiigga dad qofka muslimka iyo markuu iimaan yeesho waxbuu kaga duwanaada ay dhahayaan dhinacaas de aanu garan maayo laakiin diin ahaan cudurradan dilaagaa dadka way ku wada dhaxaan waa laga yaabaa sababta keentay dembi inuu noqdo laakiin xataa dembi hadduu ku yimaado ciqaab ku timaado qofkii dembiga galay kuma ekaato wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minhum khaas fitnadu markay timaado qofkii sababay dembiga aakharee gaar ku noqotaay saamaynta dunida gaar kuma noqoto saas darteed waxaa nabigu la hadlaya cudurrada ha aadina ha ka bixina iska ilaaliya ka carara leeyahay gaal ma aha oo muslimiin
marka cudurkani intaan garanaya gaal iyo muslimba waa ku dhacaya intaan aragnayna hadda labadaba iyagoo u dhintay aragne muslimiintu inay banaanka u fariistaan oo iyagu isaga dhigaan asbaabtii la yimaadaan lagaga badbaadi lahaa baa laga doonaya inaan banaanka isugu dhin cudurka qofka u geeriyooday covid-19 ee uu fayrasku ku dhacay sidee ayay dadka meydkiisa dhaqaya isaga ilaalin karaan jeermiska ama infectionka alxamdulilah masalada dhaqitaankiisu dadka say isaga ilaalin karaan waxaan umayna masalada masale culummo ay ka jawaabaan ma ahane waa masale fasalu ahla dikri dadka sida la ysaga ilaaliyaay oo masaa'il caafimaad wey taas waxaan dhihi lahaa dadku inay raacaan talooyinka jihaadka iyo dadka caafimaad ahaan lagu kalsoon yahay ay bixinayaan inay raacaan bay soo gelaysaa aayadda qur-aankiihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaynu naqaa inaan aqoonin caafimaad si la isaga ilaaliyo dadka aqoonta u leh aaminkana ah waxay sheegayaan in ahayn war aan la hubin iyo qof aan la garanaynin iyo aan ahayn bay u baahan tahay in laga dhagaysto diin ahaan taladaa unbay sharcigu bixin karaa dadka aqoonta u leh ee aaminka ah laga dhagaysta talada ay bixiyaan laakiin inuu ka fogaado fuqahadeennu axkaan ahaan bay ugu dareen haddii qofka dhaqaya loo baqayo in loo gebagabeeyo haddii taabashada looga baqayana sidiisa lagu aaso gabagabadii maxaad ugu baaqaysaa bulshada soomaalida ee ku dhagaysanaysa ama ku daawanaysa alxamdulilah bulshada somalida waxaan ugu baaqi lahaa marka koobaad ilahi subxaana wa tacaala in loo laabto oo loo toobad keeno labadaba waa mare imtixaanaadka adduunyadu ilaahay in loo noqdo waxyaabaha fududeeyay ka mid tahay ducada iyo allabarigana lagu aqbalo waa marka labaadee markay musiibooyinku yimaadaan qayb waxaa ka mid ay xambaarsan tahay dadka in geerida iyo dhimashada la xasuusiyo oo hadday taadiiba noqoto ay jaanis noqoto aada towbad keenta inta aanad taadii imanin qodobka labaad aan kula dardaarmi lahaa waxaa weeye in ilaahay la magan galo oo la ducaysto oo la baryo waxyaabo badan oo qadaraa oo qornaa oo soo socday waxyaabaha ilaahay ku qaada waxaa ka mida ee lagu celiyo ducada iyo alla bariga nabigeena inay ka sugantay ala slam yidhi qadarka iyo qadaha waxaa celiya oo keliya ducada laa yaruddu lqadaa ila alducaa waxa ilaahay kuu qora inuu kugu dhaco duco laga aqbalay baa celisa saas darteed ducada iyo alla bariga inay ku dadaalaan ilahayna waxba wax kasta kuma aho kun fa yakuunu waa qodobka saddexaad aan kula dardaarmi lahaa inay wixii asbaaba qaataan way oo ah in asbaabta iyo dadaal ay sameeyaan iyo sharcigu isma diidayaan in iimaankii iyo qadarkii ay rumeeyaan wixii ilaahay qadarayna waa dhacayaan qofka ilaahay u qadaray baa ku dhimanaya saas darteedna waxayse markuu lahaa cudur kasta dawle geerida maahane dad badan baa waxay u fahmaan khalad geeridu wax gaar oo cudurrada ka duwan oo socda inay tahay xadiidku wuxuu ka hadlayaa cudur geeri og dawo ma laha saas darteed soomaalida waxay dhahaan saddex xal looma helo cudur geeri og iyo gardarro garab og iyo gaajo guri og cudurka geerida og dawo ma yeesho isagoo kale dad badan baa dawadan kaga caafimaadi laakiin dee qof baa waktigiisa soo dhammaaday haddaan cudurku geeri ogeyn oon ajashii soo waafaqin dawu leh hadduu ajashii waafaqan laakiin daawo ma laha cudur kasta oon kii ajashii ku soo aaday ahayn dawu leh marka asbaabtii iyo dawadii inay qaataan oy dadaalaan baa laga doonayaa ugu dambayntii waxaan dhihi lahaa cidda waxaan aqoonteeda leh uga dambeeyaan hadday xukun sharciga tahayna culimmadii ha looga dambeeyo haddii ay tahay caafimaad iyo daawooyinna dadkii aqoonta lahaa ha looga dambeeyo labadubana fasaluu ahla dikri bay soo gelayaan ilahi subxana wa tacala ha naga badbaadiyo ummadda iyo aadamahana dhibkiisa ha ka qaado